xubno ka socday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa maanta wadajir u booqday xarunta hay'adda barakacayaasha qaranka waxaana ay u kurgaleen sida hadda ay tahay xaaladdu iyo qaabka loogu shaqeynayo dadka Soomaaliyeed ee barakaca ah. kulan ay wada qaateen wasiiru dawlaha arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, madaxda hay'adda barakacayaasha qaranka iyo xubno ka socday hay'adda UNHCR ayaa laga soo saaray in dadka Soomaaliyeed ee abaarta aawadeed u barakacay dib u dejin loo sameeyo. Cabdullaahi Faarax Wehliye, wasiiru dawlaha arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo madaxa hay'adda UNHCR u qaabilsan Soomaaliya, Mrs. Collarina ayaa waxay wadajir u sheegeen in dadka Soomaaliyeed ee abaaraha aawadeed u barakacay dib u dejin loo sameynayo. When it comes to refugees, returnees and IDPs, we are here also to meet with the new Minister of Interior, the State Minister, and to ensure or reassure of UNHCR support. waxaan ka wada hadalnay waxyaabo badan oo runtii aad muhiim u ah ay ka mid tahay inay qayb ka qaataan abaaraha ka jira dalka, inay qaybtooda xoog badan ka qaataan, inay ka qayb qaataan qaxootiga Soomaalida ee dibadda laga soo celinayo, inay runtii ay laban dadaalkooda ku aadan also qaxootiga gudaha ku barakacay. sidoo kale wasiiru dawlaha arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Wehliye ayaa sheegay in dadka degan xarumaha dawladda ee barakaca ah laga saari doono dhawaan. waxaan ku heshiinay inay si laban especially qaxootiyada degan xarumaha dawladda ama meelo ay ku dayacan yihiin oo kale inay dib u dejin u sameeyaan oo ay ka raraan meelihii ay geeyaan meelo ay ku noolaan karaan. runtii taas ayaa ugu muhiimsan, iyo inay ballan qaadeen inay si degdeg ah uga qayb qaataan arinta gurmadka abaaraha. dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha taageera barakacayaasha ilaa iyo hadda ma aysan sheegin qorshe cad oo dadkaasi dib u dejin loogu sameynayo. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.